qaar ka mid ah hoggaanka dhaqanka beel ka mid ah beelaha dega gobolka Awdal ayaa waxay maanta si rasmi ah uga biyadiideen inayna galayn doorashada ay dhawaan isla qaateen saddexda xisbi qaran sidoo kalena waxay jawaab cad siiyeen qaar ka mid ah hoggaanka dhaqanka oo hore u sheegay in lagu gali doono 13 xildhibaan hoggaanka dhaqanka oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxay yiraahdeen saaka waxaan qalab taaganahay annagoo ah beelweynta makaahil waxaan taageersanahay go'aankii horgeday buu soo qaatay ee saamqaybsiga ahaa ciddii jabisay go'aankaana sharci baan ka talaka ka maraynaa salaadna ka qaadayna lagday buursanahay waxaan dowladda u sheegaynaa Soomaaliland madaxweynaha ku-xigeenka cid kasta qusayso in go'aankii buursha uu yahay saamqaybsi ilaa uu helo dhacay doorasho oo murtidu ay tahay saamqaybsiga 20 sano ayaan sugaynay annagu 20 sano ayaan dul qaadanaynay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan ka codsanaynaa nabad lagama doonayo maanta ninka hadii la afar oday oo meesha hadii la lama matalaan annaga lama matalaan waligoodna lama matalaan shacabkiiya waxay kala dilayaan dawladda iyo dadnimada sidaa darteed waxaan halkan isku soo taagnay ama beelahan makaahil ay matalayaan guud ahaan shirka Gadabuursi uu xukuumadda uu la hortagay ee lagama baaqdaanka biyo kama dhibcaanka ah ee saamiga waana ku taageersanahay kamid baana nahay waana meel kaliya uga soo wada jeednaa haday tahay dhacaynin waxa weeyi isaaqaligii uma laha xaq in uu meel mariyo saami qaybsi la'aan doorasho in la qabto dadka Awdal ku nool iyo wakiiladay dirsadeen dariiqay marayaan dacalkii uga leexda dubba weyn iyo qaarun daab inay la dhacaan bay doonayaan Samaroone dambeeyo islaali waxaan la yaabanahay nin baa yiri war waa yaab maxaad la yaabtali ninka dibiga kaliya beerta qodayaan la yaabud go'aanka iyagu hadalka badin maayo waa saami qaybsi makaahil hadii aan nahay oo la lahaa hadda ka hor makaahil baa jabiyay wax jabiyay waxaan ka hadlaynaa oo maanta makaahil halkan ku dhan yahay waxaan raacsanahay annagu Gadabuursi halkii uu maro iyaan maanta hadii la yiraahdo marsanahay raggii hor ee Gadabuursi halkii ay ka hadleen baan annagu maanta ka hadlaynaa horta waxa weeye dhada roob ma noqoto dadkan waxa weeyaan Samaroon baa kala jabay iyo qaar baa ay qaatay waxa ay wax shaqaynaysa maaha Samaroon waa mid annagu haddaan nahay beelweynta makaahil laf dhabarta Samaroolkay martay baan maray taasaana ku qanacsanay waxaan yeelayna maaha saami qaybsi hadii la diiday jiritaanka Awdal baa la diiday in madaxda haddaad tihiin iyo dawladda haddaad tihiin inaad ka rarsaysiin waxaan loo dhannayn tolu dhannayn oo in beelu u dhannayn gobol u dhannayn inaad ka rarsaysiin horta waa nasiib daro waayahay shicibka Soomaaliland ma aha shicib 10 oday xukumaan anu waxaan leeyahay haddaan Gadabuursinahay saami qaybsigii madaxweyne ku-xigeenka xukuumadda dawladda waan rabnaa in la qanciyo marka waxaan leenahay wixii awood qaybsiga wax gobolka jooga imiga oo Soomaaliland gobolka Awdal Gadabuursi iyo ciisabaha noqday inaan sargaala oo 30 jir ma jiraan odayaashii dawladdiisa aad baa ka hadhay ayaa lagu taxaway wada dhintay nin qolo sargaali maanta ma jiro oo hayaysan oo daayar nin daamacad oo jiray midna kuma lihin shayba kuma lihinba marka waxa weeye maadaama aanay meeshan awood qaybsi jirin imikana odayaal baa la yidhoon maaragtay ergaanadeen horgeedii baan qaadanay yidhi waxba kama jirayaan haddaan dadweynaha nahay haddaan dhallinyarta inta aan u weynahay nahay marna yeeli mayno in la yidhaahdo ree hebel baa aqbalay ree hebel baa diiday marna ma noqonayso haddaan gobolka Awdal nahay saami qaybsi haddii la waayo marna ma yeelano in la galo waayo saddexdii hore xildhibaanba awood way yeelan waayeen labadooda ee saamiga ma garanaysaa soo qaaday yiri annaga qaadnayna marka horeba ka gaar bay haayeen codka gobolka iyo aragtida gobolka oo dad hore loola sii hadlay oo hore looga sii shaqeeyay bay haayeen laakiin odayaasha kale intooda kale aanu gunta anagu isku mid bay haayeen oo dhinac bay ka wada jeedeen labada oday mooyaane labada oday gobolka markaa waxba ka bedeli maayaan haday dawladda Soomaaliland ku qanacsan tahay laba oday oo codka dadka daba furaya oo loo afduubayo majority waa ka hadlaya beesha makaahil
وشعيب محمد كان شعيب جيس تلفزيون كعالمي بولشو مقالة بورما